Jubbaland waxayna soo gashay 59 wixii ka dambeeyay ayayna soo gashay original dhulku waxa la dhihi jiray Wamo dhulka dad baa laga kiciyay Boran Wardeey dad noocaas oo kala ah waxa la isku dhihi jiray saddexda gobol mataqaanaa ama gedo iyo mataqaanaa iyo labada jubbo ilaa iyo Gaarisa Wamo la dhihi jiray marka arrin siyaasadeed raadeed ayaa magacii Wamo oo originka ahaa oo dhaxalka ahaa ayaa loogu bedelay Jubba ama Jubbaland marka kullu shay yarjic ila asli dhulka waa Wamo dadka degana waa reer Wamo la dhihi jiray marka waxa loo asaasay Wamo oo mataqaanaa loo taagay markii xaq darro badan ummadii deganayd lagu sameeyay majority-goodii oo ay noqotay in lagu soo duuro dadkii deegaanka deganaa lahaa asal in qaxooti laga dhigo ay maanta Muqdisho refugee ku yihiin odayaal 90 jir ah guryahoodii ka soo cararay odayaashii talada gooyn jiray ahaa ayaa la soo raafay koow waxa la soo raafay 4 sano ka hor koowna waxa la soo raafay hadda la soo raafay marka xuquuq darradaas oo jirto awgeed ayaa dadkii deegaanka ahaa oo majority-ga ahaa ayaa isu tagay yiri xal maxaa noo ah waa inaan u halganaa xuquuqdeena ilaahayna uu jecel yahay qofka xuquuqdiisa inuu raadsado dulmiga waa xaraam ilaahay asaa isu diiday inuu nafsadiisu dulmi u diiday marka in binu aadan jira degan dhulkoodii la xasuuqo guryahooda cagaf la mariyo la barkiciyo oo laga dhigo looma ooyta ama dad aan loo ooynin wixii lagu sameyn karo lagu sameeyo taa ma soconayso waayo ummadda ayaheeda iyaga ka tashanayo xuquuqdooda iyaga raadsanayo annaga marka waxaana saaran maamulka waxaa dhisay dadkii deegaanka isu tagay ilaa iyo 12 qabiil ayaa isu tagay yiri maxaa noo dan ah way dhisteen way ku midoobeen waxaan annaga marka aan u taaganahay inaan u dabaaldegno go'aankoodii annaga kama dhisin qurbo kama dhisin dawladda Mareykan lagama dhisin Australia lagama dhisin Scandinavia lagama dhisin Africa daafaha Afrika waxa laga dhisay Soomaaliya laga dhisay dadkii deegaanka ayaa dhistay marka annaga deegaankii ayaan caawa taageeraynaa waa loo asaasay macnaheedu dadkii deegaanka oo la xaqiray oo xuquuqdooda u istaagay ayaan annaga caawa leenahay xuquuqdiina waad raadsan kartaan waxaad ku raadsan kartaan dariiqad kastaba laakiin dhiig hadaadinina ma jeclin mana doonayno nin islaam ah nin Soomaali ah in dagaal iyo dhiig uu ku dhinto haddii la isku kallifo taas waa meesheeda difaacu nafsi la yiraahdo laakiin inaysan xuquuq aysan lahayn ay ku dulin kuwa xuquuqda dadka duufiyay oo meesha degan xuquuq duufiyay meesha degan yihiin xuquuqdooda ma duufinayo laakiin nin kor ka yimid marna ma yeelayno inuu dadkii deganaa walaalaha ahaa oo intaasoo sano walaalaha ahaa inuu mataqaanaa uu kala qaybiyo waxaan leenahay Wamo waxay u taagan tahay in deegaanka loo qaybsado si